Wajiyadan quruxda badan ee ay hormuudka u yihiin hogaanada sarsare ee boqortooyada barakeysan ee Eylo ayaa halkan u fadhiyo ka dhabaynta arrin ay kalfadhigiisa koowaad goobjoogayaal ka ahaayeen nabadoono maanta halkan ka maqan. Nabadoonnada ayaa isugu jira mid beeleed, mid jufo iyo ugaaska guud ee boqortooyada barakeysan ee Eylo, ugaas Maxamed, ugaas Shirey, ugaas Imaan. Kalfadhigii koowaad oo lahaa dooda aad u kala fogaa kadibna laga gaaray go'aano masiiri ah in laga ballamo yeelashada kalfadhiga labaad oo ansax ah. Soo xaadiritaanka nabadoonnada boqortooyada barakeysan ee Eylo ayaa go'aan lagu soo saaray in la ansixiyo soo jeedinta kalfadhigii koowaad ee ahaa in nabadoonka guud ee boqortooyada qowmiyadda Sagaal Eylo laga dhigo nabadoon Saciid Buule Dhixisow si ay nabadoonnada boqortooyada barakeysan ee Eylo ay u yeeshaan hoggaan midaysan. Waxaa laga dooday ansixitaanka nabadoonka guud ee boqortooyada barakeysan ee Eylo. Nasiib wanaagsan waxaa la isu raacay in la raaco wadadii ay nabadoonnadii hore ay raaceen in Saciid Buule Dhixisow uu noqdo hogaamiyaha ama nabadoonka guud ee boqortooyada barakeysan ee Eylo. Waxaa sidoo kale la isu raacay in la ansixiyo nabadoonka xigeenka guud ee boqortooyada qowmiyadda Sagaal Eylo, waxaana loo magacaabay nabadoon Xasan Ibraahim Xasan, loo yaqaano Xasan Eylo. Kalfadhigan ama shirkan oo ka dhacay guriga nabadoonka guud ee boqortooyada qowmiyadda Sagaal Eylo u qaabilsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, nabadoon Cali Abuukar. Nabadoonnada ayaa ku dhawaaqay ansixinta iyo wada shaqayn dhab ah in laga helo gudoomiyihii golaha xalinta khilaafaadka Sheekh Cumar Iftiin Cumar Eylo inuu yahay gudoomiyaha sida saxda ah ugu shaqayn doona darajadaasi. Intaasi kadib nabadoonnada ayaa ka hadlay xanuunka ku yimid nabadoonka guud ee Hirshabelle, nabadoon Karaamad Jimcaale Socdaal Kaalmoy Kulmiye, in si dhaqso leh nabadoonnada ay u booqdaan nabadoonka allana uga baryay caafimaad degdeg ah. Arrimaha inta la isugu imaaday waa arrimo qaali ah oo dadka iyo dantaba macnaha anfacda. Marka horta arrimahaas arrimo qaali ah waaye. Kule odayaasha inta lagu doortay waayaantaana warkooda socday, maanta la soo gabagabeeyay haddii alla idmo. Nabadoon Saciid Buule waa nabadoon guud ah loo doortay. Nabadoon Xasan Eylowna ku xigeen ha laga dhigay. Odayaasha odayga dub heshiisiinta Cumar Eylow Aftiin horyo u ahaay haddana toosa loo ansixiyay haddii alla idmo. Kolay insha Allah nabadoonka kale oo nabadoon Karaama asigana xanuunsan horta Ilaahay caafiyo. Markan taami ayayni kulmi Sagaal Eylo kulmi oo maadguul lahayna Eylo Sagaal Eylo ee kulanti maylka dooray nabadoon guud lan la araw Saciid Buule lan la araw la dooradi may dooray nabadoon kihigeen lan la araw Xasan Eylow Xasan Ibraahim Xasan Eylo kuma gadheer yala ka duubi wali ka damboy ini li wada shaqeeyo Sagaal shaqeeyo meel burro gotiga of miriyo Sagaal shaqeeyo leen duubi may iniyo idio regono hooli ay samay may duubna maylin duuba ini Sagaal walan qobadan Sagaal beeg hob robta fara Sagaal dhawe lug sala ka dhiga ko abadiyada lug sala ka dhigas Ilaahay badi laakiin meelo musloodo kulmo marka mayl faday hato ama fadaane ulu Ilaahay ka dib Ilaahay garabkaana gala isiin ini beelka maadi miyodan ka dadaal unu ka dadaalna tan kala nabadoon Karaam amar Ilaahay ka dhig waa lan xanuunsan waaye may gorna ini ndaqna wala ngobno haddii Ilaahay aro haddii ngobdo tabarqaano kulay saxaabaska bal saalka miyar meel rooge taasa waasan goolun geega gool nabdeedu gool heshiisu gool odayaal waaye. Ugaaska Malaaq Shirey wuxuu sheegay in nabadoonyada ayaan ayeedsanahay war badan faa'iido male waan isku raacsanahay. Nabadoon Saciid Buule maanta lagu dhawaaqay sagaalka isku afgartay ayaan garab taaganahay. waa sagaalka waan ogolnahay ma khalaafsanin insha Allah ta'ala asagana garabkiisa Allah galo waan u duceynaynaa asaga iyo ku xigeenkiisa Xasan Eylow waan u duceynay insha Allah ta'ala anagoo rabno inaan caleemo saarno nabadoonka guud ee Sagaalka Eylo. Nabadoonkaas oo magaciisa la yiraahdo Saciid Buule aan isugu nimaaday inaan maanta meeshaan ku caleemo saarno anagoo wada jir ah oo wax khilaaf in ugu dhex jirin oo isjecel si walaaltinimo ah si ehelnimo ah si aqraabanimo ah waxaan u caleemo saarnay asaga inuu noo noqdo nabadoonka guud ee beesha Sagaalka Eylo. waxaana gudoomiye ku xigeen loogu doortay nabadoon ku xigeen loogu doortay Xasan Eylow
وأيدسنهاي واحد عوده كما قبلنا واسيده وشيغay ugaaska ka daba hadalna ma lahan waxaan bulshada Soomaaliyeed ogeysiinaynaa dhamaantood in anagoo raali ah oo nala soo qasbin aan gogosha imaanay sidina aan ku caleema saarnay qodobka koowaad nabadoon karaama jumcada socdaal oo xanuunsan ayaa maanta inta ugu shuureynay qaabkii uu tag laheynay ee wixii tafaasiilkiisa wax u bixin laheynay ayaan ka shuureynay nabadoonyaalka iyo aqyaarta iyo dhalinyarta inaad maanta liis garabsado waxba loo kala xiran nabadoon karaama jumcada in la tago la soo booqdo af ibarna loo tagay go'aan ku gaarnay aan ku shuureynay waa qodobka koowaad kan lamaad jumcadantii saddexaad waxa ballanta ahayd nabadoon guud in la bixiyo hadda ka horna odayaal hore ugu dhawaaqeen anigoo maqan aan ku raacnay haddana maanta loo isku raacay nabadoon Saciid Buule Dhicisow in nabadoon guud noqday ku-xigeenkiisana nabadoon Xasan Eylaw Afgooye asana inuu ku-xigeen noqday waa qodobka lamaad kan saddexaad sagaal marka waxaa waxoogaa buuq ka kacay guddiga khilaafaadka waxuu shalaxay loo isku qabsaday Umar Eylaw haddana waxoogaa buuqaa ka kacay asi maadaama meesha laga waayey Umar Eylawna guddiga khilaafaadkaas ka mid ahay iyo asiga iyo ku-xigeenkiisa inay sagaal eylo u shaqeeyaan oo beriga ay mideeyaan oo iskugu xiraan asiga iyo intuu garabsan karo taasna maqsadkii saddex oo afraad waay maadaama nabadoon guud la duubay iyo ku-xigeen la duubay Afgooye baraakiyaalkiisa looma duubin nabadoonka iyo ku-xigeenka maxaa loo duubay sagaalka macnaha Afgooye baraakiyaalkan leemas degan sagaalka baraakiyaalkan sagaal ma degana sagaal wixii Afgooye ka sokay inta waxa jira ilaa Johor iyo Jalalaqsi ilaa Beledweyne meeshan tagay ilaa sagaal meeshan ku soo arkay inta waxa jira ilaa Baydhabo iyo Buuri alxamdulillah ilaa Xudri waajido jira inta waxa jira Dhowooy waxa uu maanta hadda aan tagay hanta wadaag ilaa ka sii kor sagaal jiro marka haddii nabadoon guud laga dhigay lagu dhaho on duubnay ee ku xigeen aan duubnay Afgooye leen dadku sugayna haddii dhahan ka war been hanoo sheegana nabadoon guud ee ku xigeenkiisa oogni aasni been hanoo sheegana haddii been noo sheegaysiin Soomaa hadda waanu cadeynaysa war isku ma darsana haddii kale biri oqraxdeeda sagaala xirxiran nabadoonyaala xirxiran kooxa ku xiran shabeellaha hoose dhaxdiisa ku xiran goondiirka mid yahay maxuu rabaa marka nabadoon guud iyo nabadoon ku xigeen inay u socdaan la rabaa insha Allah taala ilaahi subhanahu wa taala allahna nala garab galo mas'uuliyadan qaadnay nin walba mas'uul ah wixii mas'uulka nagadi qiyaamul su'aale kullukum raaci way dhamaan mas'uul wahay nin walba wixii mas'uulku yahay su'aala insha Allah taala annaga waxaan nahay dad le deegaan le meel loogu yimaado loogu soo hoggaanahay waxaan nahay dad boqortooyo soo maray haddana boqortooyadoodii aan mataqaanaa hiigsanayo marka geedi iyo hebelowga la sheegayo waa ma aqaan aniga meelow ka yimid haddaa jiran idinkaa sheegi doonta sagaal eyla loo kulansiyahay maanta goshaan sagaal eyla iska leh wax maad guuri la yiraahdo iyo maad nagaada wax la yiraahdo ma naqaano eyla afar waxlaadaan ku maqlay 75 sano jiraa intaasaan maqlay tan koowaad Cali Cabdille waa maqlay oo waa lagu abtiriyaa tan lamaad saddex gambar waa lagu abtiriyaa tan saddexaad afar gurashaasha waa lagu abtiriyaa marka maad guuriga iyo maadkan nagaadi meel oo ka yimid ma naqaan laga fiirsado arintaas maad guuri iyo maad nagaadi wax jira maaha eyla sagaal eyla waaya aabaheed eyla waay